golaha guurtida siyaasadda beelaha hawiye maxaad ka qabateen dadkaas abaaruhu ay saameeyeen horta waxa qaban kara ilaahayga weynaayo waayo bini aadamku waxa qaban kara male saad ogsoontihiin waxaa waddankan ku habsaday abaar saad u sheegteen abaartaas waxay saameysay dad iyo dunyaba haba kala daraadaano gobollada oo meelaha webiyada u dhow waxaa laga yaabaa waxbartoodii wax cunay jiraan laakiin meelaha webiyada ka fog dadki iyo xoolihiiba waxay dabargo ay ku socdaan waxaana loo diiday wax mucaawinaa oo la gaarsiin kara male dalagii ka soo go-aayana qiimihiisa aaday u sare kaceen waxaa jira wax hadda soo go-aaya ma jiraan waxay hay-aduhu keenayeenna niman shabaab la yidhaahaa horjoogsaday oo diiday inay dadka u gudbaan marka nasiib darradaasaa taallo annaga waxba ma qaban sababta aan waxba qaba weynayna waxa waaye tabartayna waxay la eg tahay inaan baaq u jeedin adduunka iyo gaar ahaan ummadda soomaaliyeed oo haysata ama gudaha joogaan ama dibadaha joogaan waxa baaba-aya waa dadkoodii waxaa la dul degan yahay oo dhibaatadu haysata waa dadkoodii waxaa la rabaa inay communitiyaal ka sameeyaan waa jiraan oo dibadaha waa ka jiraane communitiyadaas waxaa la rabaa inay deeq ururin bilaabaan deeqdaas ay ururiyaan inay u kala qaybiyaan magaalooyinka iyo sida loo kala daran yahay ama wakiilla ka samaystaan gudaha ama qaar iyaga ka mid ay gudaha usoo diraan dadku waa joogaan waana inta ilaahay geerida u qoraa dhimanaysay madfacan iyo 20 sano waa nagu socdeen iyo xabadaha dadna waa ku tageen dadna weli waa ka nool yihiin marka annaga arrintaynu arrin iska gaabanay noqoto maadaama anaan anagu dadka dhaqaalaha leh aanaan ahayn oo hadda qofna hadduu dhaqaale leeyahay laftiisa u haysto kuma filna ummad baahan kuma filna meelaha qaarkood xataa waxaa laga sheegaa sida mudug oo kale nin odayahoo tegay maalmo dhoweed wuxuu ii sheegayo nin ariya geel lahay oo arigii u qalaayo geeli si uu abaarta uga soo saaro geeli hilibka cunaayo sidii bani aadamka in geeli hilibka cuno la soo saaro meeshaasay maray geelaasu marka dambe waxaa shuruuday inuu dadka cuno waxaa jira hilibka u baranaayo waxaa jira wax la siiyo ma jiraan waxayna hadduu arkaayay hortaada ku baaba-ayaan waa abaarti dabadheer oo kale iyo abaarihii ka dambeeya hadda 92 iyo meeshaan u hay jiray markaas ama dowladaha jirto gurmanaysa ama gargaar caalamiyaha la helayo dadka gacan lagu sii jiray hadda intii oo dhanba balaayaad soo degtay oo aan ogolayn oo rabta dalka in laga barakaco markaas dadkuna baaba-aan markaas dal firaaqa inay helaan taasuna kaliya iyaga kaliya ma tartamaa loogu jiraaho dhinacan xalanana shirkada iyo waxaasaa ku xaraysan oo iyaguna waxay rabaan inay meesha dadka ka barakacshaan kuwaasuna inay barakacshaan ay rabaan hadii tartan xoog laha meesha ka jira dadkiiba warkiisi lama haayo laakiin anigu hadda waxaan ugu baaqi lahay qolooyinkan hadda banaanada jooga inay gacan ka geystaan aan ugu baaqi lahay marka laga soo tago soomaalida baaq aad u jirtay maxaa jira muqdisho deegaanada aysan shabaabka joogin oo dowladda ay joogto in dhibaatooyin ay ka jiraan hareeraha aeroboortka degmooyinka wada jiraya dharkeena iyo meelo kaloo badan ma la xiriirteen oo ma u sheegteen hay-adaha UN-ka ee dirigiri Kenya degan dhibaatadaas jirta inay wax ka qabtaan waayo gobolladu waxay ku marmarsiyoonayaan in ay al-shabaab u diideen marka ma kala hadasheen arrimahaas hay-adaha UN-ka ee dirigiri degan maasha allah nimankan international community la yidhaaho macaawanooyinka iyo waxaas bixiyo siyaasaddan Soomaaliya iyo gafaraha kula jira iyo dhaqaal ahaan dadkaasu dad carrada xukumo waaye qof u tegi kartay qof u sheegi karta male warqada daawo wartana qof meel ka soo qaadaya male haddaad la hadashana qof wax ka soo qaadaya male waxaa jira wasiirkii arkayaanan wax ugu fadhin waxay helayaan madaxweynihii aan wax ugu fadhin waxay helayaan ra-iisul wasaarihii aan wax ugu fadhin oo waxaa la yidhaahdaa ma ogtahay carabtu waxay tiraa
man laa yamliq quutahu laa yamliq qaraara qofkii aan wuxuu cunahays go-aanna ma leh maadaama dee qarankiiba tuugsanayo oo uusan gacantiisa wax ku jirin maxaad u malaynaya odahawiye oo iska jooga ilmihiisa la cambuulaysta maxaa qiimaha uu ku fadhiya had u malaynaya inuu inta gaal u tago ama muslim u tago uu soo dhaweeyo wuxuu sheegayo ka dhagaysto maanta mid soconaysa maaha bal iska dhaafa dalkii gadasho hayaan oo barshituwaale yar oo nin qaadanayo uusan gobolkiisi meeshaan ahayn oo gobol kale ka yimid ayaa hay-adii la heshiinaya iyadoo qaranka soomaaliya magaciisa loo soo maraayo marka dalkiyaa laga gadanayo xataa xoogaagaas oo commissionka ah uu helayo waxaan u qabaa inay kasoo bixi lahaayeen abaarta haba iska gatay dalkaanu hadda beeca ku jiraahe ninkii mase u malaynayo beecaasu inuu ansaxayo waxaa la yidhaha beecaan ansaxaya waxaa kamid a beec la yidhaha beeculqarara kamid a oo la isku kadiyo qofka la boogsiiyo marka inuu beeculqarar naqon doonaan u malaynaa oo un dadkii weligiiba ka dhidhi jira xumaanta waa joogaane nimankaas hadda waxaan ugu baaqaa oon usii marsiinaa idaacadaha iyo internetyada iyo caalamka baan u sheegaa war international community-ga iyo war dadkan waa baaba-a meesha ayna shabaab joogin ayaa gaajo loogu dhimanaa xooliyaa ku le-anayo dadkiia ku le-anayo waxna ma siinayaan taasuna waa dhibaatada taagan waaye nimankii meesha u joogo wakiiladahay xataa kuu suurtogeli mee inaad la xiriirto kuu suurtogeli mee dhowr jeeraan inta israacanaan maagna inaan raadino waardiyaalay samaysteen irdaha la fadhiyaa inaad u gasho aadi kugu adkaanay haddase waxaan bilownaa inaan warqad u qorno sida ACRC oo kale oo iyo kuwaan WFP-da iyo waxaas inaan warqada u qorno waa arkaynaa waxay jawaabay ka bixiyaan laakiin carradu waa carro oo baahideedu badatay waayo baahi 20 sano jirsatay ma ogtaa dhibkaa ka bato oo qofna tixgelintu waa